adeer maxamed xirsi axmed waxa uu goobayaa walaalkiis ka yaraa oo 1942 ku dhumay magaalada Beledweyne sababtoo dhumayna waxay ahayd in asaga iyo aabihiis oo xanuunsan ay soo wadaadeen magaalada Beledweyne kadibna roobkii gugu daayay markii roobkii gugu daayna malaria dilaacday awgeed oo aabihii meesha ku geeriyooday wiilkii yaraa la socday 3 jir ahaana asna halka ku dhumay xilliga rahmaanir rahiim anigoo ah maxamed xirsi axmed degan degmada Balanballe أنا بيش مريحان في واشماركة خاصة بهم تشرتين وحان عطسان هيا آلن حرسي أحمد وكل مي تجمال قبلك هيران بلدوينة وحي مسلنا وحكتاس أما هيا أما مغلي حكتاس هيا وحان عطسان هيا إلا إيسو تليو لقد صاحريو لمبركا فوراه شن صدن يافر إبر صدح 8 لمبركاس أنيقو محمد حرسي أحمد وشاهدين آدم حرسي أحمد adeer maxamed xirsi axmed waxa uu goobayaa walaalkiis ka yaraa oo 1942 ku dhumay magaalada Beledweyne sababtoo dhumayna waxay ahayd in asaga iyo aabihiis oo xanuunsan ay soo wadaadeen magaalada Beledweyne kadibna roobkii gugu daayay markii roobkii gugu daayna malaria dilaacday awgeed oo aabihii meesha ku geeriyooday wiilkii yaraa la socday 3 jir ahaana asna halka ku dhumay xilligaas baad goob badan oo ay sameeyeen ma suurtagelin in la helo balse adeer maanta waxa uu ku baraarugay inay jiddo warbaahin la isku mariyo in lagu baadi goobo dadka waayii hore dhumay ayna jiraan familyo badan oo dad 100 sano ka maqnaa qoysaskoodii dib u la midoobay dadkii ehelka ay ka dhasheen marka adeer maxamed waxa uu maanta goobayaa aadan xirsi axmed oo maqan in ka badan 83 sano oo walaalkiis ka yarna ahaa oo waliba isku xigeen aan idhaahdee buu baadi goobaya marka ummadda muslimiinta waxa lagu codsanayaa in adeer maxamed la goobaan walaalkiis hadii uu nool yahay iyo hadii familka haray haddii ay jirto cid xog ahaan iyo taariikh ahaan buu haysa 1942 nin dhalinyaro ah oo wiil keenay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Beledweyne asagina halkaas ugu guriyooday xanuunkii duumada ee malaria xilligaas ka dilaacday ilmihii yaraana isbitaalkii uga tagay haddii ay jirto cid sheeko ahaan iyo sidoo kale taariikh ahaan haysa wax xaraan la soo xiriirto adeer maxamed xirsi wiilkaas laga tagay waxa uu ahaa walaalkiis aadan xirsi axmed oo ka yara marka waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka reer Hiiraan ee taariikhdaasi laga yaabo inay ka maqal ku tahay inay la soo xiriiraan lana baadi goobaan walaalkood maxamed walaalkiisii ka yaraa ee dhumay ee aadan